dowladda Turkiga ayaa soo saartay war ay cadho badani ka muuqato sidoo kalena u muuqda hanjabaad toos ah ay dowladda Turkiga ugu dirayso dhalinyaro Soomaaliyeed oo bilihii ugu dambeeyey isbuucyadii ugu dambeeyey su'aalo adag dul dhigay qaabka ay Turkiga iyo Soomaaliya heshiisyada u galaan gaar ahaan heshiiskii labada dowladood dhex maray 2024 kaasoo dowladda Turkiga ay ku qaadatay boqolkiiba 90 kheyraadka Soomaaliya ku jira bad iyo beriba. safaaradda ay dowladda Turkiga ku leedahay magaalada Muqdisho oo iyadu warkan qoraalka ah si rasmi ah u faafisay ayaa sheegtay inay baraha bulshada ku jiraan dhalinyaro faafinaya warar been abuur ah kuwaasoo sheegaya in dowladda Turkiga ay ka sadbursatay dowladda Soomaaliya. inkastoo aysan safaaraddu sheegin wararka been abuurka ah ee sheegtay inay dhalinyaradaasi faafinayaan, haddana haddii arrinkaasi uu yahay mid la xidhiidha heshiiskii 2024 ay labada dowladood kala saxiixdeen kaasoo ku saabsan ama dowladda Turkiga siinaya boqolkiiba 90 kheyraadka badda iyo beriga Soomaaliya ku jira. Arrinkaasi waa mid cad in uu ahaa sadbursi ay dowladda Turkigu ka sadbursatay dowladda Soomaaliya. Heshiiskaasina uu yahay mid ay ku dulman tahay dowladda Soomaaliya maadaama oo kheyraadkii dalkeeda laga qodayay keliya ay ka heshay 5%. dowladda Turkiga waxaa hore loogu eedeynaya ama waxaa jira tuhno hoose oo sheegayay in dowladda Turkiga ay blackmailing ku samaysay qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ah kuwaas oo ku khasbanaaday inaysan ka hadlin ama wax su'aalaha aysan iska weydiinin heshiisyada dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga wada gelayaan kuwaasoo marka adduunka kale loo eego aan ahayn qaar cadaalad ku dhisan.